السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، walaalahayga qaaliga ma jeceshihiin inaad la kulantaan maalin kasto rabbi subxaanahu wa tacaala? ma jeceshihiin in ilaahay maalin kasto aad la kulanto, aada la hadasho? ma jeceshahay in adiga ilaahay maalin kasto aad sheekaysataan? ma jeceshihiin rabbi subxaanahu wa tacaala maalikul mulki alladii biyadihi malakuutu samaawaati wal ard, boqorka boqorada, in maalin kasta aada la sheekaysato, aada la hadasho? ma jeceshahay? haddii dhibaato ay ku haasato, murugo hadday ku haasato, welwelba hadday ku haasato, dhib nooc kasta ha ku haasato, stress adduun wax kasta ahaato, ma jeceshahay in uu kaa tago oo ilaahay kaa qaado? ma jeceshahay? haddaba haddaad diyaar oo tahay maalin kasta inaad rabbi subxaana wa tacaala jala jalaaluhu maalika almulki haddaad darti inaad la kulanto, aada la sheekaysto maalin kasto, oo maalin walba hadalkiisa aada dhegaysato, fadlan waxaad badisaa qur-aan akhriska. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay, man qara'a xarfan min kitaab illah falahu bihi xasana walxasanatu bicashrati amhaaliha walaa aqulu alif laam miim xarfun, alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun. axbaabi fi lcaqiida si fiican u dhegeyso. rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu dhahay, qofka bin aadanka, qofka qur-aanka kitaabka ilaahay aqriya, hal xaraf haddaad ka aqriso qur-aanka 10 xasanaadaad leedahay. 2 xaraf haddaad aqriso 20 xasanaadaad leedahay. tasawar yaa xabiibi, haddaad beej aad aqrisato imisa xarf ayaa ku dhex jiro? haddaad xisbi aad aqristo ama juz aad aqristo imisa xarfood aad aqrisatay? waa xasanaad adiga xataa aadan soo koobi karin. fursadan ha iska luminin. midda kale faa'iido waxaad leedahay, qur-aanka intaad akhrisanaysid maalin waxay la mid tahay adoo ilaah la sheekaysanaysid. qur-aankan mar walba wuxuu la sheekaystaa anaga khaasatan dadka mu'miniinta. markas qur-aanka waxaad la kulmi doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu, markaad aragto waa bishaaro, ima in wax kheyr lagu amraayo, ima xumaan lagaa reebayo, ima in wax lagu bishaareynayo janno. axbaabi fi lcaqiida, qur-aankoo la aqriyo mar walbo qalbiga bin aadanka xasiloon ayay ka dhigtaa. qofku wuxuu dareemaa farxad, wuxuu dareemaa xasiloonnimo, amni iyo tuma'niina iyo sakiina ayuu qofka ka dareemaa qalbiga. qofka waa qofka markuu qur-aanka uu ku aqrisanayo, laakiin tadabbur uu ku aqrisanayo. ha boobsiinin sidii qof dad u sheekeynayo oo kale boobsiina lama rabo. qur-aanka si tartiib ku aqri, tajwiid ku aqri, tadabburna ku aqri, macnihiisna isku day inaad fahamto, tafsiirkiisa inaad raadiso. markaas waxaad dareemi doontaa in qur-aanka markaad aqrisanaysid inaad la hadlayso ilaahi subxaana wa tacaala, in rabbi subxaana wa tacaala maalika almuluk alladii biyadihi kulli shay laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir. rabbigaasaa maalin kasta adigana maalin kasta la sheekaysanaya. waa haddaad qur-aanka maalin kasta aad fursid aad aqrisato, faa'iidaas weyn ayay leedahay. midda kale, haddaad rabti sidoo kale ilahay inaad la kulanto maalin kasto, sujuuda badi. qofka dhibaato kasta oo haasato, murugo kasta oo haasato, haddaad sujuud aad badisid, xatman ilaahay waxaa lama horaan ay tahay inuu ku ajiibi doono, dhibaatada inuu kaa saari doono. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay, aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajidun. qofka addoonka wuxuu u dhow yahay ilaahay xaggiisa qof markuu sujuud ku jiro. markaad sujuudda aad ku jirto waxaad ogaataa inaad markaas ilaahay aad u dhowdahay, ilaahayna aad la sheekaysanaysid. waxaad doontana ilaahay weydiiso, adduun iyo aakhiraba ilahay wuu ka ajiibi doonaa. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu dhahay, udcuunii astajib lakum. axbaabi fi lcaqiida, labadan shay aa idin tilmaameen, qur-aan akhriska iyo salaada sujuudi la badiyo, waxay la mid tahay labada waqti qofka uu ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmo, uu la sheekaysto, uu la hadlo. fadlan ha iska lumina fursadan aada u weyn, intaad doonshahay ka faa'iidayso. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.